Somaliland ayaa militariga Mareykanka ugu yaboohday dekad iyo garoon diyaaradeed oo ku yaala marin-badeed muhiim ah iyada oo uga bedelanaysa tallaabooyin ku wajahan in loo aqoonsado dal madax bannaan, isagoo rajaynaya inuu ka faa'iidaysto walaaca sii kordhaya ee Mareykanku uu ka qabo isballaarinta Shiinaha ee Afrika. Ayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qorsheynayaa inuu bisha Maaj booqdo magaalada Washington ee looga arrimiyo carriga Mareykanka, halkaasi oo la filayo inuu ka sahmiyo xiisaha Mareykanka ee ku aadan isticmaalka xarumo ku yaala magaalo xeebeedka Berbera ee Somaliland. Berbera waxa ay ku taallaa gacanka Cadan oo ah marin muhiim ah oo xiriiriya badweynta Indiya, marinbiyoodka Suez iyo badda Mediterranean-ka. Madaxweynuhu wuu soo dhoweyn lahaa joogitaanka Mareykanka iyo inuu ilaaliyo marinbiyoodyadan. Waxaa sidaas yiri wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Ciise Kayd oo wareysi siiyay wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka. Somaliland ayaa muddo 30 sano ah waxa ay waday olole ay ku raadinayso aqoonsi, hase yeeshee dadaalkan cusub ayaa imaanaya xilli ay haysato fursad weyn sida ay qabaan dadka siyaasadda ka faallooda. Waxaa jira niyad jab weyn oo maamulka Washington uu ka qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho, oo dhowr jeer dib u dhigtay doorashooyinka dalka isla markaana ku lug yeelatay khilaafyo siyaasadeed oo dhexdeeda ah, taasi oo dhalisay guuldarro ku aadan in laga guul gaaro dagaalka lagula jiro kooxda xagjirka ee Al-Shabaab. Niyad jabka laga qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay weheliyaan walaacyada ka dhashay dagaalka dalka deriska la ah Soomaaliya ee Itoobiya ka socda iyo afgambigii militari ee ka dhacay dalka Suudaan ayaa dhaliyay in Koongareeska Mareykanku uu dabacsanaan u muujiyo Somaliland oo ku guuleysatay inay qabato doorashooyin dimuqraadi ah isla markaasina ku dhacay si nabad ah. Xasilooni darrada sii socota ee Geeska Afrika iyo tartanka caalamiga ah ee loogu jiro kheyraadka iyo saamaynta ayaa ka dhigaya muhiim inaan la shaqeyno saaxiibada nagu aragtida ah ee gobolka sida Somaliland oo ay ka go'an tahay nabad, dimuqraadiyad iyo barwaaqo. Waxaa sidaas yiri senator ka tirsan xisbiga Jamhuuriga isla markaasina ku jira guddiga siyaasadda arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku adkeysanaya siyaasadda Mareykanka ee ah in Soomaaliya ay tahay hal dal oo ay ku jirto Somaliland. Sidoo kalena dowlado ka tirsan dowladaha ku yaala qaaradda Afrika ayaa u arka aqoonsi ay hesho Somaliland mid ku furaya waddo cusub oo dhiirigelinaysa kooxo iyo qowmiyado badan oo doonaya inay ka go'aan dalalka ay haatan ka tirsan yihiin. Iyadoo ay sidaasi jirto ayaa haddana diblomaasiyiinta Mareykanku waxa aysan qarsan sida ay uga niyad jabsan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marar badan dib u dhigay doorashada iskuna dayay muddo kororsi. Sanadkii 2017 Shiinaha ayaa saldhig militari ka samaystay dalka Djibouti oo ku dhegan Somaliland meel u dhow marinka Bab-el-Mandeb oo isku xira badda Cas iyo gacanka Cadan. Inkastoo Djibouti aysan muujin inay sidaasi doonayso, haddana waqti kasta ayay xiri kartaa saldhigga Mareykanka ee dalkaasi, taasi oo militariga Mareykanka ku qasbi karta inay raadiyaan saldhig cusub oo ay ka helaan Geeska Afrika. Somaliland ayaa u aragta loolanka quwadaha adduunka inuu furayo albaab ay ku xaqiijin karto aqoonsi caalami ah oo ay ka hesho dunida si ay u noqoto dal madax bannaan oo ka go'a Soomaaliya inteeda kale. Haddii Shiinuhu ay awood ku qabsadaan dalkeena ama siyaabo kale, markaas marinka oo idil ayay maamuli doonaan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Kayd. Bishii Agoosto ee sanadkii 2021 diyaarad militari oo Mareykan ah ayaa caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera, halkaasi oo saraakiil Mareykan ah ay qiimeyn ku sameeyeen dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Militariga Mareykanku waxay hadda haystaan Djibouti, balse waxay u baahan yihiin qorshe labaad isla markaana Somaliland waxay noqon kartaa midkaasi. Waxaa sidaas yiri Tebo Negi oo ahaa kaaliyihii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika maamulkii madaxweyne Trump. Bishii November, Ciise Kayd oo ah muwaadin Mareykan ah ayaa booqday Washington si uu olole uga sameeyo Koongareeska Mareykanka. Bishii ku xigtay ee December, kaaliyayaal sarsare oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka ayaa booqday magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa ee Somaliland. Mas'uuliyiinta Somaliland ayaa qirsan inaysan u muuqan inay degdeg u heli karaan aqoonsi, balse waxay raadinayaan inay xulufo la noqdaan Washington kuna guuleystaan tallaabooyin ay xiriir toos ah kula yeelanayaan.